hamar video intuu bilaabna xaraan inii sheego haddaba baahanta falkan soo dhaalo geliysatid oo dhameystiran wuxuu ku jiraa Gumroad-kayga $5 waaye maadaama waxaa sameeyay asset browser iyo modelka wax walba diyaar u yihiin hatta waxay yihiin asset browser ready u yihiin soo haddaba falkan soo dhaalo geliysatid ku furtid sida videoga dhamaadkan ugu sheegi doono wax walba diyaar inay ahaa doonaan soo uma baahnina sameeyay animation iyo low poly wax walba halkan ka wada heli doontaa hadda awoodin inaad gadatid ama aanad rabin inaad gadatid videoyaashan soo saara fiirso insha Allah kaasana iga caawin doona sida loo sameeyo wax kasta halkan ku jira halkaas ka arki doontaa insha Allah السلام عليكم وانا احمد موسى maanta waxaan rabnaa ka hadalno asset browser ka blender waxa lagu soo daray blender 3.0 asset browser wuxuu ka caawin karaa inaad sameysid hal asset oo isticmaashid to file kale adigoo ka soo qaadaysid library-gaaga ku tuurisid siinka ka shaqeynaysid asset browser waxa lagu save gareey karaa material haday haysatid sheegay rig haday haysatid animation wax walba ku fikri kartid asset browser ku sameyn kartaa marka inaad sameysid dhowr xabo file ama soo dhaalo garaysatid ku save gareys kartaa asset-ka ka sameyn kartaa filmaan ama xaysiiso ama wax walba oo ka fikri kartid marka hadii videogii hore fiirsatay oo lixda qayb kaga sheekeynaa sida loo sameeyo low poly style marka maanta waxaan ugu tusi doonaa kuwaas hadaa sameysay sida aad kuwaas ugu save gareysan kartid asset browser-ka adigoo isticmaali doontid mustaqbalka maraad sameyn doontid filan iyo wax la kale haddaanad sameynin haddaanad videogaas fiirsanin haddaad samaysan doontid modelyaal mustaqbalka si aad u ogaatid sida loogu save gareeyo asset browser-ka haddaa blenderkeena furno saan u ahaa doonaa sida ugu tagna maalintii hore waaye hamar intaanan wax aanan gelin asset browser-ka kulligood aan wada xiri doonaa waxaan taabanaynaa halkan kore aad kadibna aad cube waxaa geliyay aad cube-kan isku dayi doonaa hamar inaan gelin asset browser-ka sida fududahay aan tusi doonaa haddaa imaan asset browser-ka haddaa imaano asset browser meeshaan haddaa taabana sidaan aan kor u soo jiidno way laba si u gali karnaa shay asset browser-ka markood waxa tahay inaan kor imaano meeshan aan taabano right click aan dhahno mark asset halkan noo soo gali doonaa ama control z aan leeyahay hadda imaatid object asset mark asset sida noo sameyn kartaa waxa laga yaabaa dhowr object inay haysatid rabtid inaad kulligood hamar soo wada gelisid asset browser-ka inta mid kasta aad taaban lahayd aad dhihi lahayd mark asset waxaa dhaantay inay imaatid object adigoo kulligood wada taabatay object asset mark asset afartooda baakana ku wadi ma doonaan hadda maadaama isla fahanay sida uu sameey kartid object-yaashan aan sameynay aan isku dayna meeshan inaan keeno object-yaashin waa kuwana laakiin kulligood moda click doono object-iga soo hamar waan iska wada diminina kulligooda wax kaliya u baahanaan waxay tahay dhowr shay u baahanahayna waxaan soo geliyay file ku qoran tahay asset halkan mari waqtiga aan iga qasaariyo inaan kulligooda aan furno file-ka aan raadino waxyaalaha u baahanahay saas daraadeed aan u sii diyaariyay aan u sameeyay hal file oo asset file-ka waxa ku jira bisla waxaalooyinka oo meelahan kale ku jiraan oo laakiin aanan badnayn hadoo kale geedaha sayid u badan yihiin laakiin waa 3 geed waa geedkan iyo kuwan oo cube ku eg marka wax kaliya u baahantahay waxay tahay ina collection-ka u baahan tahay soo marka collection u baahan tahay ina kor imaatid aad dhigi kartaa right click mark asset collection-ka nalkan soo wada gali doonaa hadduu yahay waxaad gelinaysid hal object sida dhagaxoo kale ama geedahoo kale waxaad dhigi kartaa right click mark asset waxaad dhigi karnaa right click mark asset laakiin waxaan sameynaynaa inaan dhagaxa taabano anagoo shift inaan taabanaa kan ugu dambeeyo kulligood halkan marka uu noo wada taabanaa inta shay u baahnaan waa 4 shay object asset mark asset afartooda wadaysna laakiin haddii hamar wax ogaatid meeshan kalaradooda waa color yani mala yani colorka saxda ma hadda aadno shaderka colorkooda oo renderka kuma soo baxaya dhinacan hoose marka sidoo u bedeli karnaa waxa bedeli kartaa laba siyaabood halka koowaad waxay tahay inay imaatid halkan aad taabtid object-iga u baahan tahay aad dhahdid file halkan hoose haddaa sameysay render oo ku gaar aad qaadan kartaa laakiin waxa inaan soo hano kale adiga render to kama sameynin inaad kamerada soo qaadatid lama dul tagin object-iga u baahan tahay ma dhihin render so marka sidee color-ka u bedeli karnaa anagoon wax render iyo file iyo waxaas aan sameynin taas aan banitus doonaa taasna waxay tahay inay imaatid aad taabatid object-iga u baahan tahay ku laabo materialka ma taqaana haddaa hoos imaatid meel ku qoran tahay viewport display haddaa taabatid meesha color-ka u bedeli kartaa color-ka markaa bedeshidna color-ka wax iska bedeli doono shaashada aad arkaysid laakiin color-kan cagaarka maaha color oo ii sheegay ay yihiin moogtahay soo marka waxaan taabanaynaa hamar meeshan dhibcooyinkaas yaryar kadib koran u qaadaynaa saa meesha ugu soo koraysaan u geeyno si aan maadana hoos ugu bixin soo marka color-kan kor imaa color-ku yahay kadibna soo jiid color-kan kala kordaa bis color-ka uu yahay render-ka aan ka dhignay
hamar waxaan ku samayn doonaa kulligooda inaan mid kasta aan taabto object kasto aan imaana taabana materialkiisa colorkane saasaan ku bedeli doonaa hadduu objectigaagi yahay uu leeyahay color ramp sidaan oo kale muhiim maaha inaa coloranta kulligood wada gelin maadaama hal color bis uu qaadana waxaad taabataa bis eyedropka kadibna waxaad dalbataa colorradan mid ka mid ah hamar kulli inta yartaan ku wada sameynaa aan ugu soo laabana hal mar hadda xogta inaan dhameeyna coloranta kulligooda hadda marka aan taabano dhagax oo kale aan dhahna refresh colorku isbedelaa landscape-ka refresh uu isbedelaa soo marka kulligooda sidaa qiyaasinaysid waaye haddaanan refresh geedaan waa kuwaana colorantoodu ay leeyihiin soo marka mar kuwan kale dhihi doona markaas inta hirtay kadib aan soo laaban doona hadda waan dhameynay kulligooda waxaan wada dhacay mark asset oo laga yaabo inay kuwa qaarkood aanan si fiican loo arkin sida shimbiraha ee ku qoranta oo kale shimbiraha waa la arkaa waa kuwaas laakiin renderka ma fiicnay moogtahay kanoo kale waxaan kuula tali lahaa inaad samaysid render u gaare soo ani render waan sameeyey shimbiraha si fiican loo arkaayo kuwa qaarkoodna maba shaqeynayabo soo kuwan oo kale oo soo qoray calaamada noocan inaad taabatid aad dhigi kartaa mid aad samaysaa ku bedeli kartaa hadda waan sameynaa objectyaashiina dhan soo hadda meeshan ay ku qoran tahay plus meesha ku qoran tahay pluskan taabanayna kadibna waxaan sameynaa collectionkan waxaan bixi karnaa low poly kadibna collectionkan hoostiisa waxaan sii sameyn karnaa mid la dhaho animated iyo mid kaloo la dhaho not animated soo marka hadda inaan soo qaadna waxayna dhan aan geli karnaa meesha ku qoran tahay low poly haddaa low polyga imaanana waan sii kala qaybi karnaa wixii animation loo kale sidoo kale dabka kale wuxuu leeyahay animation sidaas u sii kala bixi kartaa soo marka hadda waa kala bixiyey kuwa animationka meel ay ku jiraan kuwa animationka lehna meel ay ku jiraan haddaas leedahay sidee u samayn karaa materialkana sidee u fududahay materialka u baahan tahay kor kaalay sidaan kadibna right click mark asset markaad aad mark asset wuxuu soo geli doonaa unlisted maadaama meel file lama gelinin soo asigana waxaa samayn kartaa file kaloo cusub oo la dhaho material kadibna waxaa soo qaadi kartaa materialkaaga ku tuur meesha u baahan tahay sidana ku badi kartaa haddaa aragtiin kuwa aniga sameeyo kale aniga kale waxaa sameeyey kuwa side u badan kuwa la dhaho building oo guryo ku jiraan meelay ku jiraan ii sheegay waxyeelooyinka banaanka loo isticmaalo kale sida khashimo oo kale wax kastoo banaanka la dhigi karo kale ay ku jiraan iyo dad kitbash waxyeelooyin iyo haddaa sameynayo kale robot oo kale wax kasta u baahanahay aan ka sameyn karo robot halkan ku jiraan jikadoo kale waxaa loogu baahan yahay cunto electronic wadooyin geedooyin kala duwan wax walbo halkan ugu wada jiraan marka haddaa samaysid waxyeelooyin ay kugu qaadato waqti badan waxaa dhahdaa mark asset kadibna haddaa sameynaysid film oo kale ama wax haddaa sameynaysid filmaan oo kale sayda kugu fududaa doonaan haddaa kusoo loglaysa internetka kale file oo kale sida filekii oo kale waxaa sameyn kartaa meesha ku qoran tahay edit kadibna waxaa dhigi kartaa preference kadibna haddaa imaatid meesha ku qoran tahay file path kadibna taabo pluska kadibna fileka soo downloadsatay haddaa kasoo downloadsatay internetka sidaas oo kale kan sameeyo kale ama miduu qof kale uu sameeyo kale fileka fur hadduu zip file yahay kadibna fileka sidaan oo kale u qaado kadib waxaa dhahdaa mark asset intaas waaye marka maalintaas ayay ahayd waxaan rajay doonaa inuu ni caawiyo videogan haddaa su-aal qabtiinna ama wax ku shaqii laayahayna insha allah commentiga ugu soo dhaaf videoga soo socda isku dayi doonaa inaan iga jawaabo